qofka mu'minkii hadduu mutasaddiq yahay sadaqadaysto wax allaali wax aafa sixir iyo jin iyo ilm midna ma kara waa mujarrab aad iyo aad baan u tajribayna masalada sadaqadu aad iyo aad bay qofka u difaacdaa sida ay ku difaacdaana waxa weeye qofka muslimka ama qofka bini'aadmiga ama saa'ibtu waxay uga timaadaa min kasab yadihi qofku wixii uu shaqaystay bay ku timaadaa masaa'ibtu wama asaabakum min musiibatin fabima kasabat aydiikum dhibi hadday ku gaadho waxaad adigu geysatay unbay ku timi ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس وحي آد كسبتي عرضي كدلتي عقابة كينيسة والصدقة تطفئ غضب الرحمن الصدقة تطفئ غضب الرحمن مر الله عليه مركها آد صدقة الله بحضه وحادم يا وحي لقول ما جناب إلهي كابد بعدين صدقة وشيء آدي آد مهمة نبي جانونا عليه الصلاة والسلام حديث باوحو ليه والذي نفس محمد بيده ما من خدش عود ولا اختلاج عرق ولا عثرة قدم إلا بذنب وما يعفو الله عنه أكثر مرد عدبا النبي قولي إن قريكو حكته أما حدد شقادة جوجيو أما آترون تروتو وحيكو قارا ووحدا بيهو أدقو آدقيستو لقا قوينيو كدر سو ولبا وما يعفو الله عنه أكثر وحيالها إلهي وعفينا يآن لقوقو قادين دنوب تيدا با انتا لقا قوي ولبا كبضا وحا مهمة مركا قفك مسلم كايه إنو بدبادها دور ربو وقاية الشر iyo cilaaj shar labadaba way gashaa sadaqada in balaayo kugu soo socota ilaahay kaaga baajiyo iyo mid ku haysata inuu ilaahay kaaga kashfiyo labadaba way dhacdaa waxa dhacday sida taariikhda iyo turaadka carabta ku taala islaam baa wiil bay lahayd safar buu galay safar dheer buu galay uu ka raagay deedna maalmaha ka mid ah ayaa iyadoo waslad yaroo kibisa haysato saliid yar ay marsatay oo ay rabto inay afka geliso ayaa miskiinisa soo hortaagay miskiinkii intaanay wasladii afka gelinin bay siisay iyana habeenkii gaajadii ayay ku seexatay maalintaa inankeedii saacadda ay sadaqada bixisay meel cidla abuu marayay siduu isagu ka warrami doono libaax bay isweerarayaan libaaxii baa ka xoog batay dabadeedna libaaxii oo isla aad qabatid ayaa waxa ilaahay u soo diray ruux faras saaran oo dhar cadcad xidhan dabadeedna wuxuu kaga riday libaaxi inankii oo bad qaba markuu ku dhuftay libaaxii ayaa wuxuu ninkaasi ku hadlay اللقمة باللقمة اللقمة باللقمة إرجع سويري ومغلي مركا إنانكو لكن ماله أسعر أبو جروي اللقمة باللقمة مركي وهو يدي أيهمي أيو قصدي وجوار رمي مركا سيتي هويو حلي ما يكون بيجنايد ساعدي أي صدقة بحسي أي يكون بيجنايد مركا والله اللقمة ده وكل شيء جيا تنافكي كعلي باحي عربتنا waxay mahmaha u leedahay al-luqmatu tadfa'u an-niqma al-luqmatu tadfa'u an-niqma hal wasladaho aad yani bixiso ayaa niqma iyo balaayo weyn ilaahay kaaga badbaadiya dadka qaar kood waxay u haystaan qofka sadaqada bixi la leeyahay qofka milyaneerka ee lacag badan oo yani ziyaada ah haysta in uu looga baahan yahay sadaqada ma aha taas qof waliba itaalkiisa tagoliba taagiisu rugmada Soomaa in Allah la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum waxa laga yaabaa wasladaas adiga maanta inay wax weyn adiga agtaada ku tahay
laakiin ninka milyaneerka ah 10,000 bixiya ama 20,000 bixiya ayaan xoolihiisaba istabaynin iyo wasladii uu haysta ninka bixiya acmaashooda intay isu leegta isma gaadhayaan waa muruqii laba suul Soomaalidu ka sheekeyn jirtay muruqa laba suul ninba si ku ahaa sheekadii Maxamed Soomaaliyeed ninba soo martiyay nimay qaraabo yihiin ninkaasina waxba ma haysto ninka la soo martiyay habeenka waxa dabka u saaran cadka muruqa laba suul la yiraahdo muruqa laba suul dhalinyaradu garan mayso waxa weeyaan geela ma aragtay cagtiisa weyn halkuu ku istaago hilib yar baa meesha qolofta gudaha ugu jira qoloftaas laga dhila cad yar baa halka ku jira oo wada tahar ah taas maraq yar laga baxa ninkii martida ahaa ayuu maraqii yaraaya cadkii laba suul buu geeyay wax kalena isagu ma haysto ninkana martiba ahaayo gaajoonayintii waa cunay dabadeedna markii uu guryihii tagay ayuu ninkii u geed dhigtay u gogol dhigtay oo ninkii hebel baan soo martiyayo anigoo aan geed dabada aanay ugu laabnayn oo naftu ay hayso markaas muruq laba suul siiyay ninkii halay soo geed fadhiisiyo ninkii baa loo yeeray waxa la wariyay ilaa martay aynu qadina isku maynaan lahayn ninkan maxaad muruq laba suul siisay markaas wuxuu ku maahmaahay muruq laba suul ninba si ku ahaa anigana maalinta wixii kaliya haystay oo caruurtaydii u qadiyay buu ahaa isna markaas iga eed sheeganaya ninkii kala la xaaladooda maxaad yani ninku soo ashkatay horta xaaladiisa eegti kii ashkatada bixiyayba marka waxa weeye sadaqada waxaan ka wadaa ninba sibay ku tahay ninba muruqa laba suul u tahay oo wax kala ba haysanin marka waxa laga rabaa qofka muslimkii wuxuu heli karo xataa anu waxaan aqaana rag markay arrimuhu ku adkaadaan ama deyn lagu yeesho intay deyn kala raadiyaan bay sadaqa bixiyaan beenidii intay deyn raadsadaan bay sadaqa ula baxaan markaas ilaahay markiiba wama anfaqtum min shay'in fa huwa yukhlifu markiiba ilaahay markaas uu deynta ka kala daadiya waxa kale oo dhacday nin sheekaba wuxuu wacdiyay dad buu wacdiyay deedna gabadh baa waxay bixisay faraati weyn oo qaaliya ayay sadaqa ula baxday waxay tii sheekh wax kale aanu ma haysto anigu kaatunkaas oo garaamaad badan ka kooban ayaan haystaa kaasaan anigu dar ilaahay ula baxay markii uu sheekhay qaaday dahablaha u geeyay faska iyo waa la kala saaraa dahabka si loo miisaamo faskii markii laga saaray gudaheedii waxa loogu tagay warqad sixir ah oo qoran faraatigi warqad sixir ah deedna waa la aqriyay talaasimtii wixii sheekhi markaa uu gubay sixirkii maalin dambu sheekhi markaa khudbad aqriyay wuxuu ka warramayaa xaaladii uu la kulmay gabadhiina way dhageysanaysaa khudbadda gabadhii baa markaa sheekha u timo waxay tidhi sheekhow ilaah baan ku dhaartay maalintii aan kaatunkaa ku siiyey baa horta faraj iigu horreysay 10 sannadood aniga iyo zawjkaygu sariir kuma aan wada seexan bay 10 sanawaad waana maalintii la ii soo hadiyeeyay kaatunka laga bilaabo sixra tafriiq buu ahaa markii ay kaatunkii sadaqa ula baxday baa ilaahayna farajkii uu keenay waxa kale oo dhacday qisal la yaab leh nimba wuxuu ahaa qani lacag badan buu haystay cuntay diyaarsadeen isagii xaaskiisii cuntadii oo meesha taala ayaa albaabkii la garaacay gabadhii baa tiri anaa u tagay way furtay waxay aragtay qof miskiin oo taagan wuxuu yidhi waan gaajoonaya waxaan cunaysay ninkii baa ku noqotay waxay tiri nin miskiin ayna hor taagan wuxuu cunuu rabaa asuna naga eeri markaas way warwareegaan warway waxaan way maqbar dhamayn karayna aan wax ka siino may waxba siin mayna inaga kaxay ninkii sidii baa lagu qadiyay ayaama ka bacdi waqtigii uu isbedelay ninkii qaniga ahaa faqiir buu noqday gabadhiisina way kala tageen gabadhii nin kala guursaday ninkii kale oo guursaday iyadoo la joogta
ayaa albaabka la soo garaacay waqti cunto ah way baxdo mar maxaad ahaydo sadaqa am raba waxaan cunaan u baahanahay waaba ninkii qabi jiray iyada ninkii waaga sadaqadaha bixin ku yiri ee iyada qabi jiray weeyaan ninka sadaqadaysanaya dawarsanaya intay raashin fiican u soo qaaday ninkii baa u timid wax tirwarnimo ay nabar iyo wax ma siiya waxay u qaad wixii uu cuni karayaba uu ay u geysay iyadoo ooyeysay soo noqotay iyadoo ooyeysa ay soo noqotay markaasuu ninkeedii ku yiri maxaa ku helay sadaqaynu la baxnay ilaahay hortii baynu la baxnay wax lala ooyay ma inaga sameeynay markaasay tiri waxaan aad iyo aad uga ooyayaa ninka aan sadaqada siinayay waa ninkii qabi jiray markaasuu aan miyaad garanaysaa maya ninkii maalintii aad u diiday qadaanay ninkii maalintii aad qadiseen ayaan ahay maxaa jira marka xadiiskii rasuulka aad fahmaysaa rasuulka wuxuu calayhi salaatu wasalaam maalin kastoo cadceedi soo dhalato laba malag baa ilaahay soo diraa mid wuxuu yiraahdaa allahumma a'ti munfiqan khalafa ka kalena wuxuu yiraahdaa allahumma a'ti mumsikan talafa xadiiskaas kuma muuqdo labada malag way duceeyaan maalin walba mid wuxuu ku duceeyaa ilaahayow ninkii wax bixiya بدل خير قبس أسو بدل ككلنا وحو إلهذا إله يونك بخيل كي وحشده وحو بحنكره إله وحك بابيه وكان سيدا يسوي ده تسمعت مركا الدنيا دو هركا وريجية هركا اللي بدي يسجلين بالاستبدجية مركا الصدقة تطفئ غضب الرحمن قف كنوي الدفاع ده صومالينا صدقة إرجع وقف عم بيكون ترجمان Soomaalidu marka la yiraahdo sadaqo af Soomaali waxa la yiraahdaa dhawrto macna qofku way dhawraysaa daafac albala waa dhawrto weeye sadaqadu waana waxay tajribeeyeen in qofka bini aadmiga sadaqada la baxa ay ilaalinayso ubadkay u ilaalinaysa aakhiradiisa u ilaalinaysa hatta waxay ka ilaalisaa sidoo rasuulkeenu sheegay calayhi salaatu wasalaam geerida xun khaatimo xumo inta badan kuma dhinta ninka saqiga ay ninka gacanta furan leh khaatimo xumo yaala kuma dhinto had iyo jeer qofka mu'minka